caawi dadka si aad u caawiso naftaada. Caawinta dadka waa maalgashiga ugu wanaagsan ee la hubo inay dib kuugu soo noqonayso. Caawinta dadka maaha kaliya samaynta wax wanaagsan, laakiin waxay kaa dhigtaa mid faraxsan oo caafimaad qaba. Waxbixintu waxay abuurtaa isjecel iyo in la is ixtiraamo. Waxay kaloo abuurtaa bulsho xooggan oo isku faraxsan, oo iska warqabta keeda buka iyo keeda qadsan. Waxbixintu kaliya maaha in lacag la bixiyo, waxaa jira waxyaabo badan aad baxsan karto, sida xooggaada inaad sadaqaysato, adigoo qof culays wada aad caawiso, ama shakhsi indhala aad wadada dhaafsiiso, ama ruux waayeel ah. Caawintu waa wax ku dareensiinaya nolosha dhabta ah oo kugu abuuraysa farxad aan qiyaas lahayn. Xigmad Shiinees ayaa lahayd, haddii aad rabto farxad hal saac ah, wax yar maskaxdaada degso ama seexo. Haddii aad rabto farxad hal maalin ah, aad kulmaysi. Haddii aad rabto farxad nolosha oo dhan, caawi dadka. Daraasado badan oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in farxadda saxda ah aan laga helin hanti badani ama hodantinimo, ee laga helo caawinta dadka. Diinta Islaamkuna waxay ahmiyad aad iyo aad u ballaaran siisay waxbixinta iyo iscaawinta. Allah wuxuu ina farayaa inaan wax la baxno, wax badanna inoo sheegay waxbixinta iyo iscaawintu inay tahay nimcad aad iyo aad u weyn, xitaa ilaa uu nagu waajibiyey sako. Rasuulkeennuna in badan ayuu ina leeyahay, wax baxsada oo wax isku hadiyadeeya, aad isjeclaataane. Dhanka kalena uu nagu leeyahay, ibkiina iyo jiradiina sadaqada ku daaweeya. Walaalayaal, waxaa idinkala dardaarmaya naftiina iyo taydaba inaad wax la baxdaan, xitaa ha noqoto dhoola caddayn.